anagu 65 sano jira waxa igu qasbay inaan qori qaado waxa igu qasbay shabaab waxay lagu sameeyay inay dadkii birayda ahludiin mahay inay xoolihii dhacdo inay dhiigiisi banaydo oo waxay reebtan la arag shahiid aan nahay intaas ay igu qabtay oo ii dhiibay horta qorga aniga anoo 70 sanka ku hayo 65 sano jira anaga wiilkeeya oo macallima oo 18 qofood dugsi u haayay ee dugsigu ugu yimideen biray afar moorana shan moorana waa dhaceen oo xoolahana ka mid intaas ay igu qasabtay inaan anoo 65 sano jira aan qoriga qaadan ku sheegay muga ugu horeeyda degmada iyo beesha Moqokoriye qabsadeen meel ay la garaleeyahay ka intaan ka bilownay degmadii aan ugu soo galnay ama beeshii waa ka bixinay waxay degeen meel la yiraahdo xawo gadiid waa ka bixinay waxay degeen gumaro meel la yiraahdo waa ka bixinay waxay degeen meel qarfa la yiraahdo waa ka bixinay waxay degeen meel qarla la yiraahdo waa ka bixinay waxaan ay degeen gumare waa ka bixinay waxay degeen ceel xaqare waa ka bixinay waxay degeen mabaax haddaan ka bixinay aadayabaalna waa ka bixinay meeshaasaan sii wadnaa annaga dawladu lama caawin waxba gacana kama helin hay'ad gacan kama helin waqtiyan qadno annagoo qadsan aan shahiidaynay waqtiyan xoolahayna qalanaynay waqtiyan deyn Moqokori ka qaadanaynay intaasaan kula shahiidaynay wax kaalmaatiyoon helnay gaaladoon risaasta ka qaadanayna ka jira waxaad sheegtay in deegaano aad farabadan aad ka saarteen al-shabaab ma jiraan gaadiid aad ku dagaal tagtiin oo leedihiin annaga gaadiid aan leenahay male ninkii laga dhaawacma ooraan ku soo qaadanaa cawaye biriyaan soo wadnaa dhaxow ku dhimana daawo la soo higsana male gaadiidan ku soo qaadna male dadkaas agooma oo shahiida oo dawlad waay oo shacbi hay'ad waay oo saas u shahiida haddaan ka rabnaa markii adduun weynaha la ka arko oo la ka caawiyo oo